كان عنقرة كيمدي تركيا كيمدي محوك قدوينه كاموسا صحيح أنا وحكو قرنا أنت الله هي شيء ما عرقه إن إثيوبيا لسي يدل كونتون سنادود هاي كرئيسة طية يد حكومته وحيبها وقوي كويالا تن عنقرة وحكو قرن وأنا هذا كي مدحوينه كده واجنا تركيا كوباغن inay kireystaan dhul inay ka mid noqoto heshiiska magaalo wax u dhaxeeya abadan ma jiro xasan markaa haddii muuse laga diiday isaga ajandahan ka diidana muxuu yahay uu doonayo ama dhulkii inuu xaraasho ama maguurtadii dhaxalka Soomaaliyeed bad iyo dhul ahaa inuu cid kale ka kireeyo ama ku wareejiyo dan qura ayuu ka leeyahay walaalahayna way ka hadleen dantaasina waxa weeyaan inuu meesha sii joogo oon cid kale ku tartami kartaa hayna iman taas ayuu u burburinayaa gobolada taas uu qabadaynayaa ama Jubbaland ama meel kale marka dantiisa gaarka ah iyo danta gaarka ee Abi Ahmed ayaa walaaloobay Soomaaliya markaasi xukunka ugu waaro xaraashka u badiyo jeeska lagu sameeynayo u bato cirka dhakada la inaga shubayahay si badato ya waxa soo dhan waxa loo sameeynayaa ma aha jiilkiina soo kacay iyo kuwa iman doona in la waaro xaqoog inuu waaro in isagu sidii adoon muxuu ahaa qolooyinkii ahaan jiray cimri daa'imka madaxda ahaa inuu halkan ka noqdo taa haddaynu yeelnana ilaahay haynoo naxariisto taa haddaynu yeelno ilaahay haynoo naxariisto dhulkani waa dhulkeennii dhulkii Itoobiyaanka maaha ilaahay baa halkan inagu abuuray cid kale hadyadii noomay siin maalintu ilaahay dhulka duubo ayaa teenana la duubaya inta ka horeysa Soomaali waa inay ku tashataa in cid kale oo halkan ka atooreyn karta hayna iman kare laba kalmadood ayaana Ingiriis ku oran doona qolooyinka Ingiriis wax ku dhageysta iyo Turkiga ba sida madaxweynuhu sheegay abaal badan baa loo hayaa gurmadkii gaar ahaan dadka masaakiinta ay u soo gurmadeen markuu madaxweynaha ahaa We respect the people of Turkey. We respect their president and their institutions. But we want to just tell them a simple truth, a simple human truth. And that's Mr. Erdogan and his government, that our country is not for lease or for sale. And we want him and the institutions of Turkey to understand that. Second, to the African community, the African Union and the international community. The African Union understands that the last colony in this continent was the Republic of South Africa under apartheid, 1994, when President Nelson Mandela and the ANC defeated the apartheiders. That was the last colony. What Abiy Ahmed has in mind is a new version of colonization of other people's territories, in particular ours. And consequently, we will tell the African Union and the international community the era of colonialism is over. And I want to remind them one historic incident that the Somali people in the African continent have pioneered.